waxaan soo qabtay Sharmaake Cabdinaasir Sharma Boy waxa la cimaamadu ka dhacday waxa weeyaan reer Puntland iyo reer Somaliland baana ka wakiila waxa weeyaan ninka dhalinyarada ayna uu khaldamaa shimbir waxa la maalin bay dab qaado maalintiina beelay gubtay xal Instagram-ku ku cusub iyo live ku galo live-ki waa ka ku waashay waxaan leeyahay Soomaali Maxamed iyo reer Somaliland gobolkii ragga Hargeysa Garowe meeshu gobtu degi jirtay iyo Puntland cimaamada Sharmaake Cabdinaasir hala soo tuuro lagu tuuro cimaamada ma dhicin ma umada iyo xasuuqaadka xataa way ka dhaceen waxa wax iimaan dharkii oo dhan ana ma adeeyo kacaliyo khaldamay Sharmaake dhacday oo nin maalin xaabku istaagan noqday ilma ayaa iga dhaxay cimaamada ku soo cimaamada xataa haafis oo cesho iga wada dhacday taas mid soo noqonayso ma ekee haafis oo cesho Soomaali Maxamed waa arkaysan qofku uu khaldamaa laakiin si qofka ka garaaba waxa weey gobtu way ka garowda khaladkay geysatay ninka dhalinyarada ee 20 jirka uu khaldamay khaladkii uu galay isla xalay isla maanta waa ka jawaabaya raaligelinta ka bixiyay inaad ku qaadan doontaan oo dad qalbi wanaagsan tiin oo raaligelintaas idin deeqayso ana marxaati ka reer Somaliland iyo reer Puntland waa gob كل حال waxaan dhigay in ilka la idaadiyo oo qalmo kood hadii uu yaalaan alxamdulillah sanadkiina ilma adeeyo ma dhaxaysa haduu ilaahay gaado insha Allah Superstar-ka reer Muqdisho Sharma Boy ayaa raaligelin buuxda ka bixiyay hadalkii gafka ay xalay ka soo yeeray mar uu bartiisa Instagram-ka live-ka jiray hadalkaas oo si khaldan loogu adeegsaday baraha bulshada isla markaasna aan la fiirin sababta keentay inuu fanaanka hadalkaas dhaho ayaa si khaldan wuxuu ugu faafay muuqaalkaasi baraha bulshada daawadayaal xogtaas oo dhameystiran iyo raaligelinta fanaankaba waan idin hayaa haddii aad ku cusubtahay channel-keena fadlan subscribe saaro gambareelkana furo si like saar muuqaalka siina sheegay asxaabtaada la wadaag xalay live uu ku jiray fanaanka daadire reer Muqdisho Sharma Boy ayaa waxa dhacday hadal yar uu dhahay oo inta la dadaray in baraha bulshada lagu faafiyay hadalkaas intiina live-ka la socotay oo daawanaysay xaqiiqda dhabta ee fanaanka hadalkaasi ka keentay way la socotay balse dadka muuqaalkaasi go'an ee la soo jarjaray ku faafiyay baraha bulshada ayaa u maleeyay inuu fanaanka si rasmi ah u aflagaadeeyay deegaanada Puntland iyo Somaliland haddaba xaqiiqda dhabta ah ee barnaamijkaas aan idin hayaa balse waxaan idin daawasiinayaa raaligelinta buuxda uu bixiyay walaalkeen Sharma Boy oo ka raaligeliyay hadalkii gafka ay xalay ka soo yeeray balila daawada haddaba sidaad aragteen fanaanka raaligelin buuxda ayuu bixiyay balse waxaa jira sir fara badan oo ka qarsoon adiga aan ogeyn fanaankan da'da yar tan iyo markuu qaaday xilligii uu qaaday heestii Hargeysa waxaa jiray dhalinyaro fara badan oo deegaanada Somaliland degan oo caanka social media isla markaasna fanaanka aflagaadeeyay isla markaana waxyaabo fara badan oo san ka mudnaan ku tilmaamay tan iyo xilligaasi fanaanka uu iska hadalkiisi iyo waxyaabaha la dhaay uurka ay ku heystay waxaana ugu sii darsamay xalay markuu live-ka soo galay in dad fara badan oo soo bahaystay iskuna soo tilmaamay inuu Sharma Boy live ku jiro ay aflagaada aanan uu fanaanka mudnaan isla markaasna ka xanaajisay ku soo qorayeen ayagoo hoogan magaca Puntland iyo Somaliland taas ayaana keentay in fanaanka aflagaadadaasi ka soo baxdo asana ula jeedan laakiin deegaanadaasi balse uu ula jeeday dadkaas live ku soo karbaashay isla markaasna arrimaha qabiilka iyo waxyaabaha khaldan ku soo qorayay waana tan keentay in fanaanka uu ku xanaaqo dadka soo qorayay qabiil hebel baa tahay waana tan keentay inuu fanaanka sheego inuu san qabiilku ka dhashay uu ka baxo oo qabiilka la sheegto waxaana ka keenay hadalkaasi waa qabiil nacayb iyo qabiil nacayb Soomaalida intooda far badan waa dad xiiseeyay arrimaha qabiilka balleefka markuu soo galayba intii ka horeysana baraha bulshada waxa haystay Sharma Boy qabiil hebel buu ka dhashay asaga oo tii og iyo markuu live-ka soo galay waxay Soomaalida u soo qoreen dadka intooda xun qabiil hebel baa tahay maxaa u sheegan laadahay maxaa dadkaas ugu heesaysa adoo qabiil hebel ka dhashay waana tan keentay in uu xanaaqa fanaanka isla markaasna aflagaadadaasi ay ka soo yeerto waana tan keentay inuu dhaho qabiilkaas waan ka baxay oo qabiilkaas baan ahay mar dambana idima soo sheeganaya farahay ka qaada haddaba intiina xaqiiqraadiska ah xaqiiqda rabta sidaas ogaad in fanaankan hadalladaas xun ay ka keeneen dad live caanka ah social media isla markaasna live-kaas fanaanku ku jiray ku aflagaadeynayay waana xaqiiqda rasmiga ah ee keentay in hadalladaas xanafta leh oo fanaanka ka soo yeertay isla markaana xataa muuqaalkaas waa muuqaal la soo jarjaray oo hadallo fara badan iyo waxyaabo fara badan la isku soo dardaray oo baraha bulshada lagu faafiyay isla markaana ay faafiyeen dad nacab fanaankan xaqiiqda dhabta ayaa inuu fanaankan xushmad iyo qadarin ay ka mudan yihiin deegaanka ku dhashay Puntland iyo deegaankii maalin loo taariikh heesta qiirada iyo xambaarsaneed uu qaaday Hargeysaba haddaba
waxaa jirtay tan iyo markuu fanaanka xilligaas heesta soo qaaday dad caanka ah deegaanada Somaliland oo magac leh balse aanan doonayn halkan ka sheegno inay fanaanka hadalla xanaf leh u soo jeediyeen isla markaana waxyaabo fara badan uusan ka mudneen oo ay fanaanku tilmaameen asagoo waxaas uur ku haysto haddana markuu live ka soo galay waxay ku bilaabeen aflagaado saan baa tahay waxaana samaysaa waxyaabo la mid ah waxayna sababtay in fanaanka markuu celin waayay asagoo oo waxaas ba arkaya haddana dad u dhashay deegaanada Puntland iyo Somaliland ay qabiil ku soocayaan qaarkood ay dhahaan Puntland baa u dhalatay qabiil hebel baa tahay maxaa xamar iyo barnaamijkaasi Hargeysa ugu heesaysaa iyo waxyaabo la mid ah markuu arkay fanaanka hadalladaasi shib ayuu ka dhahay haddana way ku sii badiyeen oo qofka bini'aadanka damiir iyo wuxuu leeyahay iyo sidoo kale dareen buu leeyahay isla uu xanaaqay fanaanka hadalladaas gafkaana waxa ka keenay qabiilka dadka ku soo qoray commentiga dhahay qabiil hebel baa tahay maxaa qabiilkaas u sheeganaysa oo maxaa qabiilkaas maxaa deegaankaada ugu soo heeslaaday waana tan keentay inuu fanaanka yiraahdo aniga qabiilkii ay sheegaysiin iyo deegaanka ay sheegaysiinba aniga ayaa cuno waxa sheegaysiin ma ihi qabiilka ay sheegaysaan inaan ku faano arabtaana ma ihi qabiil hebel baa ku biiray sharmaake ma aha nin qabiilad jecel ma aha nin qabiil jecel hadduu qabiilad iyo qabiil ku jirto marar hore u baraha bulshada ayuu kaga hadli lahaa kaliya wuxuu sheegay kaliya in ay aflagaadadaasi iyo waxyaabahaas ka soo baxay fanaanka ay ka keeneen dad leefka ku jiray iyo sidoo kale dad deegaanada Somaliland caanka ah oo fanaankan tan iyo markuu hees soo qaaday waxyaabo fara badan oo mudneen ku dhaxay haddaba daawadayaal xogta muuqaalkan oo dhameystiran waa xaqiiqda adaad daneynaysi waa intaasi Sharma Boy aflagaadadaas waxa ka keenay dad Facebook caanka ah isla markaana ka soo jeeday deegaanada Puntland iyo dad kale oo deegaanada Puntland ka soo jeedo oo rabay inuu fanaanka arrimo qabi waxaan soo qabtay Sharma Cabdinaasir Sharma Boy waxa la cimaamadu ka dhacday waxa weeyaan reer Puntland iyo reer Somaliland baana ka wakiila waxa weeyaan ninka dhalinyarada ayna uu khaldamaa shimbir waxa la maalin bay dab qaado maalintiina beelay gubto xal Instagram-ku uu ku cusub iyo live-ku galo live-ku waa ka ku waashay waxaan leeyahay Soomaali Maxamed iyo reer Somaliland gobolkii ragga Hargeysa Garowe meeshuu gobtu degi jirtay iyo Puntland cimaamada Sharma Cabdinaasir hala soo tuuro lagu tuuro ma dhicin macluumadii iyo xasuulka xataa bay ka dhaceen waxa wax iimaan dharkii oo dhan ma adeeyo kaniyo khaldamay shamaaka dhacday oo nin maalin xaabku istaagaan noqday ilma adeeyo iga dhaxo cimaamada ku soo cimaamada xataa haafiisu ceshay wala iga wada dhacday taas mid soo noqonayso ma ekee haafiisu ceshay Soomaali Maxamed waa arkaysan qofku uu khaldamaa laakiin si qofka ka garaaba waxa way gobtu way ka garowda khaladkay geysatay ninka dhalinyarada ah 20 jirka uu khaldamay khaladkii uu galay isla xalay isla maanta waa ka jawaabaya raaligelinta ka bixiyay inaad ku qaadan doontaan oo dad qalbi wanaagsan tihiin oo raaligelintaas idin deeqayso anaa marxaati ka ah reer Somaliland iyo reer Puntland waa gob كل حال waxaan dhigay in ilkaan lagu daadiyo oo qalbi ku dhig hadii ay ugu yaalaan alxamdulillah santiina ilma adeeyo mar dambe ma dhaxaysa haduu ilaahay ilaaliyo insha Allah